وبادري كريستان وعقود بين دad kiniisada yimid markaas wuxuu leeyahay go to the internet all the naked ladies are Christians bal internetka gal dumarka qaawan oo dhan waa Kristaan laakiin kuma jirto gabadha Aamina ee muslimadda ah dhamaantiina waxa waxbarasho u aadeen jaamacadda Harvard sidee ay waxbarashadiini iskugu turjuntay ee macnaheedu u noqday qaawanaan balse waxa jira wax gabadhaas cilinay oo aanan bedelayn taas oo ula jeedo diinta medicine ayaad isla barateen cyber security ayaad isla barateen sidee marka cyber security aad barateen iskugu bedelay qaawanaan raggan lacag ayay ku bixinayaan in ay gataan ilbaxnimadii reer galbeedka si ay islaamka u keenaan marka hore waxaan maqalnay in duqa magaalada London uu yahay nin muslim ah balse maanta England waxa ka jira 6 maayar oo muslimiin ah iyaga ayaa meel walba ka talin doona xitaa haddii aad hawada taabato islaamnimo ayaad ka dareemaysaa shanta aroornimo meel walba samiicad ayaa ka qaylinaysa qaylada marka wuxuu ula jeedaa adinka inkastoo islaamku 600 oo sano oo ka dambeeyay diinta Kirishtaanka haddana waxa uu faafayaa sida dab keen qabsaday oo kale marka qof Kirishtaan ah uu bangiga tago waxa uu ku faanayaa inuu shaqo adag haysto inuu shaqo fiican helay axadda kaliya ayuuna kaniisada tagayaa wuxuu u maleeyaa inay hawshu meeshaas ku dhamaatay laakiin ka waran marka qof muslim oo taga bangiga su'aasha ugu horeysa weydiinaya waxay tahay halkee ayaan ku duka karaa haddii 12 la gaaro waa salaada khudbada ayuu ka wadaa oo aadan siin meel uu ku dukado waxa uu fisanayaa sijaayadiisa meeshaas ayuuna ku dukanayaa maxaa yeelay waxa uu aaminsan yahay ayaa ka sarreeya shaqada ilaa aad uga samayso bangiga dhexdiisa meel uu ku dukadana uu kula dagaalayaa bangigaas door rabo bangi ha ahaado dad lacag ay leeyihiin hadiiba jimcaha la gaaro shaqo walba oo ay hayaan way joojinayaan laakiin Kirishtaanka xataa haddii aad soo agaasinto oo tiraadi maanta waa duceysanaynaa waxay lagu leeyahay ka jooji meeshan bangiga dhexdiisa halkan ma meel shaqo ama soo bangi ma soo meel lagu dukado waxaan u maleeyaan inay wax fahamsan yihiin haddii ninka muslimka isagoo gaariga wada la gaaro salaada khudbada maalinka jimcada gaariga wadada dhexdeeda inta ku baakimo ayuu salaadi galayaa laakiin ka waran Kirishtaanka haddii aadan AC ku xirin meesha lagu dukanayo lagu cibaadaysanayo maba imaanayaan xataa haddii aad dheerayso ducada way kala tagayaan laakiin qofka muslimka ka waran sujuudiisa wajigiisa meesha ka madow waa sidii uu sujuuday oo dhulka u dhigayay ayuu wajiga wuxuu ku yeeshay bar madow sharaf ayayna u tahay wajigaas madow oo way ku faanaan waa video marka dunida dhan qabsaday oo dadka dhan maarta xaqiiqada islaamku in uu dunida ku faafaa ee ugu baraarweyn